ولذلك إخواني قفكم مركا أو ربو إن يددكم جعلادان وإنه إلهي ويجست أو ده إلهي يددك قلوبته هذا أضاء سميع قريب جعيل إيجي إلهي يددك إجعليسي إنه ده ولذلك حتى النبي موسى وحد أركيسا إن يددكم هذا الكيس فهمان أو أي جعلادان اللي قفكم مركا اللي فهمه أو وحي الشيء اللي فهمه واللقصة لو أنا يابو إلهي ويجسني وحيابها مفتاحة أما فرها جعيلك إلهي وضدك قلبي وضع إلهي وكوغلي وحقوين عملك وناكسن إيمانك التقوى هذا يؤدوانشها إلهي آدو له ولذلك إلهي وحوليه هي إن الذين آمنوا وعملوا صالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وحي علماء كفصل المفسرين تبدأ كوضو أي محبة في قلوب العباد إلهي بقى قلبي قدتك وحقوق يا جعيل كو إيمانك لقال يا عملك وناكسن إلهي بقى ود ويالا محبة في قلوب العباد ضدك جعل هذا آيات كالواتيهد وألف بين قلوبهم قلبي قوض إلهي بقى صد مي ضدك إلهي بقى اسجعليسي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم هذا واحد قلك يا الله لم كن بحسد قفك اسمه جعليسين كرت ولكن الله ألف بينهم لكن إلهي بقى قلبي قوض صد مي marka ilaahay xaqiisa ka timaada ilaahay baa bixiya culimada qaar baa waxay isku dayeen inay baaraan oo ka hadlaan sababaha dadka jeclaysiiya way horta dadku isu jeclaadaan maxay tahay sababtu ibn hazm ayaa wuxuu ka qoray risaalo la yiraahdo dawqul hamama waa rasaaisha ama kitaabada ugu horeeyay oo dadka muslimiintu ay jacaylka ka qoraan wuxuu jacaylka sahan noqdo jacaylka ilaahay ha noqdo midka bini aadamka ha noqdo ay ka qoraan wuxuu sheegay dhowr sababood oo uu ku magacaabay dadka isku khilaafsan qolo walba sibay ku turjumeen qolaa waxay dhaheen buu leeyahay markii dadku ay dhurriyada aadama dhabarka nabi aadam ku jireen oo ayagoo nasamaa ilaahay u ballanta ka qaadayay wa idha akhadha rabbuka min bani aadama dhurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim aayadii quraanka ahayd ayuu wuxuu leeyahay marka dadkii nasamadii is aragtay iyo arwaaxdii is aragtay ayaa adduunka isgaranaysa dad baa yiri buu leeyahay marka ay isgartaan way isjeclaanayaan ma ogid adiga ma xusuusatid laakiin qofkan marba is aragteen qolaasaa tiri waad jeclaanaysaa wadaalka inagu waxaan arkaynaa qofka marka ugu horeyso aragtid dadka qaar baa iska jeclaanaysaa inagu waxa Soomaalidu waxay dhahdaan qofka jinniga nacab marka ugu horeysa baan sanifay marka koow waa ku sanifaya waxba ma dhexmarin markaasuu waxay u daliishadeen buu leeyahay xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam inna al-arwaaha junuudun mujannada arwaahdu waa ciidamo la ururiyay oo kale ruuxda bini aadamku fama taarafa minha italafa inti isgarata isu durmayso isu ururays marka hadalkaas uu soo wariyay wuxuu kala soo wariyay inay qala tiri bini aadamku waxay jeclaadaan basidoodaba sawirka quruxda badan qala waxay dhaheen waxa uu la jeclaadaa qof qurux badan marka aragti wax qurxoon waa jeclaanaysaa sababtoo aziinada adduunka waa qurux qoladaas saatiri uu beeniyay asagu wuxuu leeyahay hadalkaas ma jiro xadiistay u daliishadeen waa mawduucaad ay u daliishadeen waxaana inaga waaqiceena noo beeninaya qofka bini aadamka qofka uu jeclaanayo inuu muwaasafaad iyo sifooyin gooni ah sharti ma ah wadaalka Soomaalidu waxay dhigi jireen nin baa wuxuu jeclaaday qof dumar ah oo wax quruxa aan lahayn wax kasto oo lagu sheego falxumo way leedahay marka walaalkiiba canaantay oo wuxuu ku yiri walaalow ma qof kale aad weydii inta qofkan jeclaanays markaasuu walaalow dhinacan ka istaagay kama aad istaagin bal ila fiir dhinacan ka taagna ka soo maro fiir bal qofkaas ay qurxoonteesa uma jeedin hatta quruxdii ma wax la isku waafaqsan yahay oo qof walba waxbuu qurux u yaqaana marka wuu radiyay asagu wuxuu sheegayaa hadal saddexaad oo uu leeyahay dad baa waxay dhaheen dadka bini aadamka waxa uu isticlaata inta isku dabciga ah oo isku akhlaaqda ah oo isku dhaqanka ah wa hadalkaas waa hadal uu ajab galiyay waa hadal macquul u muuqda marka wuxuu sheegayaa qisas buu sheegayaa qisaskaas waxa kamid ah wuxuu leeyahay ninka liicha Aflaatoon waa ninkii Greek oo philosopherska ahaa Plato ma dhahan ninkaas magacaas wuxuu leeyahay nin boqor aba ninka xiray iska xiray wax reason ana uma haysto dad baa ka waasday waxay dhaheen ninkan iska daa maxaad u xiraysaa ninkan wax dambi ama sameyn markaas wuxuu ninkan waan iska nacay waan nabca mar walba xabsi uu ka soo baxay hadana uu xiraa wuxuu leeyahay ninkan waan nacay Aflaatoon baa la xiraya
aflaatoon baa sheekadii loo sheego waxaa la yidhi ninkaa boqorka uu iska kaa necab yahay wuxuu kugu nacayna lama yaqaano markaasuu wuxuu daraaseeyey dhaqanka ninkaa boqorka markaasuu wuxuu ogaaday inuu yahay insaanan yuxibu alcadla wa yakrah adulma qof jecel cadaaladda dulmigana necab markaasuu naftiisii wuxuu dhaqan uga dhigay inuu cadaaladda jeclaado dulmigana naco wuu isku tarbiyeeyey naftiisiibuu dhaqan ka dhigay markii uu caado ka dhigtay boqorkii baa jeclaaday saasuu leeyahay markii dambe wuxuu ka dhigtay dadka asaga ugu dhadhow markaasuu asagu wuxuu ku leeyahay haddaad rabtid qofku inuu ku jeclaado dhaqankiisaa la baaraa dhaqankiisa u fiirso waxyaabaha uu jecel yahay baa adigana la jeclaadaa walidaalika waxaad arkaysaa dadka bini aadamkaa inta isku dhaqanka abaa israacda maxaa dadka mutacalimiinta ayagaa isla fadhiista ganacsatadu ayagaa israaca dadka warka badan ayagaa isjecel dadka kuwaitka oo aamusan ayagaa isjecel dadka khamrada caba ayagaa israaca kuwa baadhiyada ayagaa isku guruuba kuwa qaadka cuna ayagaa isku guruuba kuwa qabiilka ka sheekeeya ayagaa isku guruuba waxaad arkaysaa laba nin u fiirso oo labada qabiil oo soomaali isugu necab waa isku fadhiya hadalkaa isugu baxa maantana waa iscaayayaan waa isla fadhiyaan sababta waa isku shaqo wadiifatuhum naftu shay shaqadoodaa isku mid a marka wuxuu leeyahay waxaa development lagu sameeyaa nafta qofka kale waxa ay jeceshahay haddaad qofka u fiirsatid oo gurigaaga xaaskaaga waxa ay jeceshahay cuntada ay jeceshahay waxyaabaha ay jeceshahay dhaqankeeda oo kale uu ninku iska raaraadiyo ama ay iska raaraadiso labada qof way isku soo dhacayaan isku waxbay jeclaanayaan saasuu leeyahay akhi ikhwaani si kastaba ha ahaatee waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabo la sheegay laakiin waxaa asal u ah jacaylka ilaahay baa bixiya waxaana lagu kasbadaa iimaan iyo camal wanaagsan iyo u dhowaanshaha ilaahay aada u dhowdahay waxaan intaa kadib sheegi doonaa sihaamun lisaydi quluubi alcibaad warmo ama leeb lagu ugaarto dadka qalbigooda leebabkan aan caawa idiin sheegi doono waa uu ilaan 15 leeb haddaad si fiican u toogatid dadka qalbigooda waad hananaysaa leebka maxaa loo qaataa in wax lagu ugaarto laakiin yaa wax ku disha ninka shiishka yaqaana sooma ninka wuu shiishayaa meel fiican buu kaga dhufanaya ugaartii wuu dilayaa haddaad leebka gantida hawada marisid waa xog kama faa'iidaysa walidaalika haddaad sifooyinkan raacdid oo si fiican u toogatid dadka qalbigooda dadku way ku jeclaanayaan waa sihaan bay ku magacaabaan culimadu sahmiga ugu horeeya inta badanna waan fiirinaynaa waxay culimadu sheegaan ayagoo nusuusta ka amba qaadaya waa salaanta waa wax aad u weyn inagu way nala yartahay waxay culimadu dhaheen waa sahmun yusiibu suwaydaa alqalbi liyaqaca fariisatan bayna amaamika waa leeb dadka lagu ugaarto oo qalbiga kaga dhaca oo qofkii aad la heshana waa ugaar aad dilatay oo kale dadka inagu waxaan aragnaa markay aadka isu nacaan maxay xujo ka dhigtaan qofkaas salaanta igama qaado soo ma macnaheedu waxa weeye qofkaasi meel aad u fog baan kala joognaa salaanta igama qaado waxaa laga wariyey baraa ibnu caazim xadiid bukhaari iyo muslim wariyeen oo uu leeyahay nabiga sala allahu alayh wasalam markuu ka sheekeynayey amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam bisabcin nebigu wuxuuna amray 7 arrimood wuxuuna amray biciyaadati almariid qofka jiran in lasoo booqdo waitibaaci aljanaa'iz qofka dhintay janaazadiisa in la raaco meydkiisa in la raaco wa tashmiiti alcaatis qofka hindhisay in loo duceeyo markuu alxamdulilah dhan yarxamuka lah la yidhaahdo wa nasri adaciif qofka tabarta daran in loo gargaaro wa cawni almadluum qofka la dulmiyey in loo kaalmeeyo wa ifshaa'i salaam salaanta in la faafiyo wa ibraari alqasam dhaartana in loo baarinimo sameeyo qofka kugu dhaarta inaad baarinimo u samaysid